barnaamijka dhallinyarada maanta. halkani waa laanta af soomaaliga ee VOA oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. duur wanaagsan dhegaystayaal waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga Washington DC. waa khamiis 14 May sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cidlano. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid a qaar ka tirsan dhalinyarada magaalada Kismaayo oo bilaabay dadaallo wacyigelin ah oo ay dadka kaga waaninayaan ka hortagga cudurka coronavirus. guddigan aan u xilsaarnay COVID-19 waxay u shaqeeyaan si joogto ah oo maalin waliba inay magaalada dhex galaan, ay suuqyada dhex maraan, meelaha goobaha dhalan dadka isugu imaadaan, inta badan ragga isugu imaada meelaha dadka isugu imaadaan ay wacyigeliyaan una sheegaan in cudurkan uu yahay halistiisa wato, ayna ka digtoonaadaan ayagoo ka hortag samayn karo in ay afka xirtaan, gacmaha iska dhaqaan, socodka iyo meelaha dadka isku imaatanka ay yareeyaan. waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida uu coronavirus u saameeyey nolol maalmeedka dhalinyarada Boosaaso. qasiidooyinkii bisha barakaysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay ayaan barnaamijka ka maqnayn. ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. kumanaan qof oo qaxootiye ayaa dib u sii barakacay. in ka badan 800 oo gurino way dumeen kadib markii uu dab ka kacay xero ay ku jireen malaayiin qaxooti Rohingya oo ku taala dalka Bangladesh. saraakiisha maamusha xerada qaxootiga Rohingya ku jireen ee Basaar oo ku taala koonfurta dalka Bangladesh ayaa la sheegay in 312 guryaha macmalka ah ee ay qoysasku halkaasi uga dhisnaa ay gebi ahaanba baaba'een, halka 362 kale oo cariish ay iyagana dumeen oo dabkuna si xoogan u waxyeeleeyay. dabkan ayaa la sheegay inuu ka kacay taangi ay gaas ku jirtay oo ku qarxay xerada dhexdeeda, kadibna dabkii uu wada gaadhay cariishyadii iyo guryihii macmalka ahaa ee xeradaasi ka dhisnaa. Musaam Xuseen Shakiil oo markii xerada dabku ka kacayay goobta ku sugnaa ayaa VOA u sheegay inuu arkay ilaa 20 qof oo dhaawac ka soo gaadhay dabkii xeradaasi ka holcayay. muslimiinta Rohingya ee qaxootiga ah ayaa xilli adag wajahaya iyadoo lagu jiro bishii barakaysneed ee Ramadaan, waxaana la sheegay in ilaa shalayto la bilaabay qorshe raashin bisil lagu gaadhsiinayo dadka xeryahaasi dhexdooda ku barakacay ee guryahoodu ay gubteen, waxaana cabsi weyn laga qabaa in xanuunka coronavirus uu ku dhex faafo xerada dhexdeeda. qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan in nabad uu ka dhaliyo dalka Afghanistan ayaa dharbaaxo xoogan la kulmay kadib markii weeraro isxiga ay ka dhaceen wadanka Afghanistan, iyadoo dowladda Kabul fadhisana ay sheegtay in ay dib u bilaabayso howlgalladii ka dhanka kooxda Taliban. weerarada dalka Afghanistan ka dhacay Talaadadii ayaa dilay dhowr qof oo ay ku jiraan 2 caruur oo dhawaan dhashay. weerar koowaad ayaa ka dhacay goob isbitaal ah halkaas oo lagu dilay 24 qof oo ay ku jiraan 2 ilmo oo markaas dhashay kadib markii dabli hubaysan ay halkaas weerareen. waxaa sidoo kale qof isu soo midaamiyey oo isku qarxiyay goob janaase ka socotay gobolka Nangarhar halkaas oo ay ku dhinteen 32 qof, xilli dowladda Afghanistan iyo Taliban ay u midoobeen sidii looga hortagi lahaa qalalaaso wadanka Afghanistan ka dhaca oo wada xaajoodiyana ay wada yeeshaan si markaas nabadgelyada dalka Afghanistan loo soo celiyo. koox xiriir leh maleeshiyaadka isku magacaabay dowladda Islaamiga ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka goobta janaasada ka dhacay, hase yeeshee ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka cisbitaalka lagu qaaday gudaha Kabul ilaa iyo hadda. Taliban ayaa beenisay in ay wax luga ku lahayd weeraradaas. duhur wanaagsan Ramadaan Kariim dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada Kismaayo oo si iskooda isku xilqaamay ayaa magaaladaasi ka bilaabay dadaalo ay dadka magaalada kaga wacyigelinayaan khatarta cudurka coronavirus oo tirada dadka uu soo ridanaya ay sii kordhayso. wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray. dadaaladan dadka magaalada Kismaayo looga wacyigelinayo khatarta cudurka coronavirus waxaa qayb ka ah dhalinyarada magaalada kuwaasoo la arkayo iyagoo suuqyada iyo goobaha dadweynaha ee magaalada Kismaayo dadka ka wacyigelinaya kadib marxalado kala duwan oo ay dhalinyaradu ka soo mareen xilligii ay dadaalada wacyigelinta ah bilaabayeen. dhalinyarada magaalada Kismaayo ayaa hadda sheegaya inay ku guuleysteen in wacyigelinta ku aadan khatarta cudurka coronavirus ay gaarsiiyeen dadka magaalada Kismaayo. Abaadir Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dadaalada wacyigelinta ah ee looga hortagayo cudurka coronavirus ka wada magaalada Kismaayo. guddigan aan u xilsaarnay COVID-19 aan ka mid nahay dhalinyarada ee isu xilqaameen waxay u shaqeeyaan si joogto ah oo maalin waliba inay magaalada dhex galaan ay suuqyada dhex maraan meelaha goobaha dadka isugu imaadaan inta badan ragga isugu imaada meelaha dadka isugu imaadaan ay wacyigeliyaan una sheegaan in cudurkan uu yahay halistiisa wato ayna ka digtoonaadaan ayagoo ka hortag samayn karo in ay afka xirtaan gacmaha iska dhaqaan socodka iyo meelaha dadka isku imaatanka ay yareeyaan. waxaa dhici jirta in maalmihii hore ay dadka nala yaabaan ay naga cararaan annagoo af xiran markaan u tagno ay yidhaahdaan war naga tegay idinkaa kuwii cudurka qabay baaba soo socda idinkaaba cudur qabay waxyaaba noocaas dadka nagu dhihi jireen. balse alxamdulilah haddeer waxaan u malaysaa in ay la qabsadeen ay fahmeen wax badan ay arkeen. waxaa dhacda haddeer meeshii ay shalay naga dhihi jireen ay naga carari jireen hadda inay ayagaba na weydiiyaan ma haysaan maaskii wejigii lagu xiranayay iyo waxyaaba noocaas. inta badan waxaan u sheegnaa in suuqyada aan laga maarmin ay imaan karaan hadday imaadaanna waqtiyada guryaha ay ku laabanayaan ayagana ayagoon toos guriga u gelin aan caruurtoodii iyo howlahoodii aan gudagelin inay gacmaha iska dhaqaan isnadiifiyaan wixii aan u sheegnana ay gaarsiiyaan dadka xaafadaha jooga oo kaleeto. dhalinyarada oo wada shaqayn dhowlo leh wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubbaland ayaa waxay si koox ah ay isugu kala qaybiyeen xaafadaha magaalada Kismaayo si ay u gaarsiiyaan wacyigelinta. Axmed Maxamed Takhal oo ah gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sharaxaya sida ay arintaasi ugu suura gashay. dadka meelaha iskugu imaadaan goobaha shaha ay ku cabaan oo kale inaan u tagno annagoo maaragtay ka hadlayno maaragtay barnaamijkaasi inay kala fogaadaan inay maaragtay isa salaamin inay gacmaha dhaqdaan xilli walba saabuun ku dhaqdaan muddo 30 daqiiqo ah inay afka xirtaan qof waliba maaragtay afxirka qofkaana qabin xitaan u sheegno ku wacyigelino. waxaa kaloo jirta inaan qaabab kale ayana aan u wacyigelino waxaa jirta xaafadaha inaan u sameynay xaafad walba 5 gabdhood iyo 5 wiil isla markaasna wacyigelin sameynayo ogaanayana xogta maaragtay dadka xanuunsan ee qaba cudurkaasi isla markaasna dhuumanayo. waxaa jirta dad maaragtay xanuunkaasi calaamadahaasi markay isku arkaan aan soo sheegaynin iyagoo cabsi ka qaba in la karantiilo marka dadkaasi si hoose oo maaragtay aan anagu dhalinyaro ahaan usoo ogaana una soo gudbina wasaaradda caafimaadka iyo guddiga COVID-19 ee Jubbaland. waxaa kaloo tagnaa goobaha maaragtay isleenahay nadaafad darraa ka jirta kaamamka oo kale barakacyaasha kudi maaragtay waan wacyigelinaa. waxaan u qaybinaa warqada ay ku qoran tahay halkudhigyo ku saabsan COVID-19 halista uu geliyahay ama calaamadaha ama sidii liskaga ilaaliyo laga hortago annagoo u sheegayno cudurka in maaragtay intii maaragtay la daaweeyo ay ka wanaagsan tahay in laga hortago. marka qaaweyshinka tirada badan baan aan maaragtay u wacyigelinaa annagoo qayb maaragtay waliba muxaadaraha culimo ay nagu jiraan dhalinyaradu qaybna dumar ay nagu jiraan oo gabdhaha inta badan dumarkay la hadlaan inaguna aan si guud ula hadalno ragga. marka Cabdiwahaab Bilaal Axmed oo ah gudoomiyaha dhalinyarada ee Jubbaland ayaa sheegay inaysan ka daali doonin wacyigelinta ay bulshada ka wacyigelinayaan cudurrada faafa oo uu ka mid yahay cudurka coronavirus. dadaalkan waa wadnaan runtii cudurkan runtii hadda uu aad u faafaya oo tirada maalin ka dambaysa sii badanaysa laakiin bulshadana hadda isku ogtahay waa bulshada Soomaaliyeed waa bulsho iska oral society ah inta badan waxaa laga yaabaa fariimaha in aysan ay aad taxadar badan u muujin laakiin
cudurkan waa cudur jira, waa phenomena caalamka o dhan ka jira. Dadaalkeeda iyo juhdeedana waa wadnaa, waan rajaynayna insha allahu in laga guuleysan doono insha allahu tacaala. Bulshadana runtii waan aad uga wacyigelinaa, kamana daalina insha allahu ilaa cudurkan insha allahu uu naga dhammaaday insha allahu. waana dadaali doonaa, waan sii dhiirigelin doonaa bulshadeena in ay maxaa la jiray ay ka digtoodaan kulamada iyo maxaa la jiray waxyaalaha loo baahnayn, maxaa la jiray ay ka digtoonaadaan oo gurigooda oo joogaan. banaanka waxaa la jiray aan waxyaalaha aan looga baahnayn oo laska baxayo in la joojiyo, oo qofka hadduusan wax dan muhiima uusan ka aadaynin macnaha uu banaanka u aadaynin inuu badka maxaa la jiray uu ku badbaadaya inuu gurigiisa joogana waan ka wacyigelinaa. intaas baan sameynaa runtii. waxaan kaloo aan sameynaa runtii meelaha qaxootiyada ay joogaan iyagana waxa la dhahaa waxaan geynay qalab runtii hay-adaha caalamiga ay geeyeen oo runtii faraha lagu dhaqdo oo hand washki iyo waxyaalihii, iyadoo runtii bulshada xoogga la saarahay inay nadaafadda ku dadaasho oo magaalada runtii nadaafadda lagu dadaalo oo runtii maxaa la jiray waayo cudurkan inta badan wuxuu la jaan qaadaa maxaa la jiray caafimaad darrada iyo inta badan ay u sababtaa soo waxa leeyahay mar walba qofka 20 daqiiqo waxa la jiray gacmaha dhaq waxa loo leeyahay soo. tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ee magaalada Kismaayo ayaa ku dhow ilaa 50 qof, iyadoo tirada dhimashaduna ay gaarayso 4 qof. walwalka ugu badan ee la xiriirta arrintan ay ka jirta magaalada Kismaayo ayaa ah in dadka marka uu soo rito cudurka ay la joogaan guryahooda, taasoo sahlaysa in cudurka uu si fudud ugu faafo dadka intiisa kale. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada nabi ammaankan.
isku bifaon kalka shabacaad kaan rabe oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan ya rasuulalaahi ya xabiibalaahi khayru khalqilaahi ya duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka. halkaaynu kaga gudubnaan maankaasi halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a. nolol maalmeedka dhalinyarada magaalada boosaaso ayaa waxaa saameyn ku yeeshay cudurka covid-19 ee uu dhaliyo coronavirus, iyadoo dhalinyarada ay joojiyeen goobihii ay isugu imaan jireen ayna ku qaxweyn jireen maadaama cudurkani uu ku faafayo magaalada. wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray. dhalinyarada magaalada boosaaso ayaa bilihii ugu dambeeyey yareeyey qaarkood inay isugu yimaadaan goobihii ay isugu imaan jireen, kuwaasoo kale ah maqaaxiyaha lagu caweeyo, goobaha lagu ciyaaro baleysteeshinada geemka kubadda iyo garoomada kubadda habeenkii lagu ciyaaro, halka dhalinyaro kale oo aan sidaasi u badnayn aysan u nugleen wacyigelinta ka imaanaysa khubarada caafimaadka. magaalada boosaaso oo horey bandow loo saaray ayaa hadda aan ka shaqayn bandowgaasi, waxaana dhallinyaradu ay yihiin kuwa soo celiyey in dib loogu ciyaaro garoomada sallaxa xilliyada habeenkii, halka galabtiina isbartiimada kubadda lagu ciyaaro, iyadoo ay usoo daawasho tagaan dhallinyaro kale oo sidaas aan u badnayn. xanuunka sii faafaya ayaa moodaa dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso in aysan u soo jeedin in ay ka fajignaadaan xanuunkaasi. qaar ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso oo aan siyaabo kala duwan ula kulmay ayaa igaga waramay sida ay uga fiijeegan yihiin xanuunkani sii faafaya ee coronavirus iyo wacyigelinada ka imaanaya wasaaradda caafimaadka. magacaygu waa salibaan salada caynab oo ku magac dheer salibaan kamaara. wallahi aniga khaasatan ahaan meesha dhalinyaro inta badan ay timaado waa ku yarahay, sababtoo ah xanuunkan waa sii ballaarinaya wadanku male ee xarun caafimaad oo fiican. waxaa umalaysaa dadkii soomaaliyeedna wax walba loo sheegaba inaysa qaadanaynba. sababta waxaa keenaysa horta wadanka waxa muhiimada kood ay tahay dadka in wacyi badan gelin loo sameeyo badan. wacyigelintiina markii loo sameeyo dee dadku wax badan bay qaadanayaan. dhalinyarahanta boosas ku nool waxaa arkaa wacyigelintiina aad noogu yartahay. goobaha aad joojisay inaad tagto maxaa ka mid ah? wallaahi goobaha waxaa ka mid ah meelaha dhalinyarta isku yimaadaan, meesha sportska ka daawan jirna oo kale, xarumaha dhalinyarada isku yimaadaan oo kale, intaba waa joojinay. waa meelaha ugu badan bulshada isku yimaadaan, weliba dhalinyarada khaasatan. dhalinyarada kale muu sheegta marka in xanuunkan aad adigu ka fajignaatay iyaguna inay kasii fajiganaan xoogga muujiyaan? wallaahi ha mar walba u sheega waxaan dhahaa xanuunkan xanuun sahlan maaha. waa aragtay adduunka caalamku ka qaylisiiyey, inagoo soomaaliya oo agabiyada caafimaad noogu yaryihiin waa dareemi kartaa. marka waa u sheega inta badan waxaan lahaa haddii xataa aad soo baxaysaan soo qaata waxyaalihii asaasiga ahaa maskar kole. marka waa kaasa. ninkan dhalinyarada ayaa isagana halkan jooga. magacayga sheeg. bismillah, magacay waa abdiraxmaan bashiir cabdulaahi, naanaysteedana waa shiine. haye dhalinyarada magaalada boosaaso ayaa ka mid tahay. bal wallaahi dhalinyarada boosaan ka mid ahay. xanuunkan haddeer sida la sheegaya saaid buu u batay. hadda inkastoo dhalinyaradii dee meel walba laiskugu imaanayo oo dee waxaan rabi lahaa in laga feejignaado oo laga fogaado, inkastoo haddeer macnihii haddeer kubaddii weli sidii loo dheelo. dhalinyarada waxaan dhihi lahaa kubadda iska daaya, nin walba boosheeshinkii ama gurigiisa ha joogo. meel walba haddeer xanuunkan saaid buu u batay. marka laga yimaado dhalinyarada kale aad la hadashid, adiga waxaa ka mid taha dhalinyarada isboortiga ah. bal inta xanuunkan uu soo ifbaxay maxaa samaysay? horta wax badan baa sameeyey. inkastaan joojiyey inaan bulshadii aan u tegi jiray, meheradihii aan la tegi jiray aan iska daayey. dhalinyaradana waxaan sheegayaa inay iska daayaan si lamid ah meelaha ay tagaan bulshada, sida kubaddii aan iska daayay. laakiin kastoo la yihahdo kubadda aad baa loo ciyaaraa, laakiin dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinana kubadda iska daayaan meheradaha macnihi magaalada suuqa. ilaa iyo iminka intee laga jooga intaada kubadda ciyaarin? muddo bilaan waa laga joogaa, kubad ma ciyaarin. laakiin hadda waxaan dhihi lahaa dhalinyarada inay iska daayaan kubadda iyo meelaha laga daawado dhanba. dhalinyaro kale oo kula fikra oo sidaadoo kale xanuunkan markuu soo ifbaxay joojiyey goobihii la isugu imaan jiray ma jiraan? wallaahi waa jiraan dhalinyaro badan oo fikirkan qaad, laakiin inta badan ma ay qaadan. dhalinyaro waxaa moodaa inayba dareensaneen cudurkan jiraba qaybtood markaa sii wareysatid. ma gaarsiisaa marka adiga wacyigelinta? aad iyo aad waan gaarsiiyaa. intii ila dhow iyo intii saaxiib lahaa waa u sheegaa. waxaan dhahaa nin walba gurigiisa iska joogo. ninkaas kale oo dhalinyarada ay halkan joogaysna sakriya sakawa oo ka mid a dhalinyarada. horta yuusuf waa ku salaamaya adiga idaacadda v o a. horta niyahow xanuunkani oo kusoo batay deegaanada puntland iyo soomaaliyaba, gaar ahaan magaalada boosaaso, inkastaanan wax wacyigelin aysan jirin. hadda anugu kubadda waa dheelaa, dhalinyarada waa dhexgalaa. dee anugu maba aaminsanaba, de ilah un baan aaminsanahay moogtaha.
laakiin way jidhaa dad badanoo noo yimaado oo yidhaahda waxaa layska daayo sidaa hala sameeyo laakiin dadku ma fahansana. laakiin hadda waxaan u sheegayaa inay dhallinyaradu ay wacyigelin ay sameeyaan, maamulka uu kala shaqeeyo inay dhallinyarada ay ku dhiirigeliyaan, inay mataqaanaa dhallinyarada ay dhiirigeliyaan oo sida ay bulshada walaalahooda ay ugu wacyigelin lahaayeen cudurkan halista ah oo dilaaga ah oo adduunka oo dhan saameeyey, dhallinyaraduna ay ku dadaasho. yuusufow hadda meelo badan baa arkaysaa dhallinyarada isku dhex jidho, meheradii ay furan yihiin, dadkii mataqaanaa maxaa iyadoo laisku dhex jira waxaa la rabaa qofkii waxa weye inuu feejigan yahay oo qofka aad la sheekaysanaysa maxaa aduu aad xoogaa ka fogaatid si aysan hadda waxaa arkaysaa qofka dhinacaaga fadhiyo isagoo hindhisaya shaki horta intaasaa wadna xanuunba horta yuusuf horta kuugu filanba markaasaa leedahay ob wixii buu wadaa. bulshada soomaaliyeed haddeerna caqabadaha ugu weyn oo haysta waxa weeye urkii waa ka dadka ka wada tegey. dadkuna waxay leeyihin qofku urka tago waxa weeye bahalkaasuu qabaa tagaan waxa la kahortog buu leeyahay laakiin ma lahan daawo ma leh. marka waan rajaynayna in dhallinyaradu ay garato, aniguna aan fahmo hadda sida walaalahay ay sheegeen oo kale aanan mar dambe aanan ku laaban. weliba cudurkan wuxuu u daran yahay dadka waaweyn sida la sheegay iyo ciyaalka yararka ah, dee qofkii tiisii ay kashana dee isna wuu raacaya. marka saasaan aaminsanahay, waana ku dhiirigelinayaa inay maamulku ay kala shaqeeyaan dhallinyarada, ay ku dhiirigeliyaan si looga hortegi lahaa cudurkan. si kastaba ha ahaatee magaalooyinka puntland qaarkood ayaa la sheegayaa inay jiraan dad ugu geeriyooday xanuunka covid-19 halka qaar kalena ay weli la xanuunsan yihiin, inkastoo wacyigelintu ay ku yar tahay magaalada boosaaso. yuusuf maxamuud, v o a, boosaaso. haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan. gabadhii u dooneed wariyihii caanka ahaa ee dalka sacuudiga jamaal khashogji ee sanadkii lagu dilay magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa taageerayaasha naadiga newcastle united waxa ay ugu yeertay inay iska diidaan qorshaha sacuudiga uu ku doonayo inuu kula wareego naadiga newcastle ee dalka ingiriiska. hadiijo oo waraaq u dirtay taageerayaasha newcastle waxa ay sheegtay in ay rabitaankooda wax weyn ka dhigi doonto naadiga kubadda cagta ee newcastle, islamar ahaantaasina ay iska diidaan qorshaha sacuudi arabia's public investment fund ay doonayso in 80% ay kala wareegto naadiga newcastle united ee dalka ingiriiska. milkiilaha naadigaasi mark ashley oo naadiga lahaa tan iyo sanadkii 2007 taasoo micnaheedu tahay in ay sacuudigu bixin doonaan lacag gaaraysa 300 milyan oo pound. hase yeeshee waxa ay khadiijo sheegtay in ay doonayso in taageerayaasha naadiga newcastle united ay iska diidaan qorshaha dalabka maxamed bin salmaan oo ku aadan in naadigaasi uu la wareego, waxaana maxamed bin salmaan lagu eedeynaya dilka jamaal khashogji oo meydkiisa ilaa hadda la la'yahay, islamar ahaantaasna la rumaysan yahay in la jarjaray oo uu ka dambeeyo dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan, inkastoo maxamed bin salmaan uu marar badan eedaasi iska fogeeyey. ziyaariyada dalka talyaanigana waxaa la sheegay in ay dib u bilaami doonaan kulamada la ciyaarayo horyaalka inta ka harsan 13 juun sida ay dowladdu aqbashay oo ay golaha guud ee liiga dalka talyaaniga ayaa arbacadii kulan video ah oo ay yeesheen waxa ay sheegeen 13 juun ay kulamada dhici doonaan, balse tababarada ay dhici doonaan bishan May aynu ugu guda jirno oo ciyaartooyda kaliya ay u tababaran doonaan si ashkhaas ah. ziyaariyada dalka talyaaniga ayaa la hakiyey 9 Maaj iyadoo 12 kulan ay ka harsanayeen kulamada horyaalka dalka talyaaniga. Juventus ayaa doonaysa in markeedii sagaalaad isku xigta Serie A ay ku guuleyso iyadoo hal dhibco ay ka sareyso naadiga Lazio, balse maalinta Isniinta ay soo socota waxaa la rajeynayaa in kooxuhu ay si wadajir u tababartaan. Bundesliga dalka Jarmalkana waxaa la sheegayaa in uu bilaami doono dhammaadka isbuucan, markaas oo ay kooxuhu ku ciyaari doonaan iyadoo aan wax taageerayaal garoomadooda joogin. hase yeeshee haddii mid ka mid a ciyaartooyda kooxaha laga helo viruska corona ayaa madaxa Bundesliga wuxuu sheegay intaasi aysan musiibo noqon doonin oo micnaheedu aysan ahayn in horyaalka guud ahaanba la joojinayo. warar goosgoos haddaan idin dulmarno, gudoomiyaha naadiga Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu aad ula yaabay markii uu maqlay in weeraryahanka naadiga RB Leipzig Timo Werner oo la xiriirinaya naadiyada Chelsea, Liverpool iyo Manchester United uu sheegay in uu doonayo in uu dibadda Jarmalka uu ka ciyaaro intii uu Jarmalka ku ciyaari lahaa. hadalkaas oo Karl-Heinz Rummenigge uu sheegay in uu aad ula yaabay. Bayern Munich ayaa doonaysa in ay 50 milyan oo pound kula soo saxiixato ciyaaryahanka garabka uga ciyaara naadiga Manchester City Leroy Sane oo 24 jir Jarmalka u ciyaara, kaasoo qandaraaskiisa ku eg marka uu dhammaado xilli ciyaareedka soo socda. wargeyska Telegraph ayaa warbixintaasi daabacay. Manchester United ayaa sidoo kale heshiis la gaartay ciyaaryahanka wadanka Faransiiska iyo naadiga Lyon
weerarka ugu ciyaara Mose Dembele oo 23 jira. heshiiskaas oo ku kacay 61.8 milyan oo pound ayaa naadiga Chelsea waxa ahayd sidoo kale mid ciyaaryahankaasi doonaysay. Barcelona waxa ay 53 milyan oo pound ay ku sheegtay in lagu iibsan karayo ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara ee naadigaasi 22 jirka dalka Faransiiska u dhashay Ousmane Dembele, kaas oo ay kula soo saxiixdeen lacag gaaraysa 135.5 milyan oo pound sida uu qoray wargeyska Marca ee dalka Spain. dhinaca kale naadiga Barcelona ayaa wada xaajood kula jirta naadiga Juventus garaan difaaca dalka Talyaaniga u dhashay Mattia Di Stilio oo 27 jira kadib markii wadahadallo ay naadiga Barcelona lahayd Nelson Semedo oo wadanka Portugiiska u dhashay 27 jira oo burburay. dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas. aad buu mahadsanyahay Jamaal oo ciyaaraha nala socodsiinayay. halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Ramadaan Kariim dhegeystayaal. haatana ku soo dhawaada qasiidada nabi ammaanka ah ee ergadii Furqaan iyo codka fanaanka Cabdullaahi Sulfe. dacadeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waa naga intaa. waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Ciidla Nuuro idin la nabadgeliyo. amran hooyada